بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed magaceygana waxa la yiraahdaa Isaaq Cabdullaahi Gonjobo kuna dhashay dheertu Saalole waxaan halkan ka jeedinaynaa dagaal baa mooyaal ka socdo dagaalka mooyaal ka socdo maxaa soo dedejiyay Soomaalida in hadda la hasuuqayo la keenay in Soomaali la hasuuqo sidii hadda ra'iisul wasaarihi u qabsaday dhulka nabad buu ahaa ra'iisul wasaare ka hor dhulka nabad buu ahaa maadaama oromadu ay maaragtay ay mucaarad yihiin oo duurka ku maqan yihiin oo ciidamadooda ay badi ay duurka ku maqan yihiin hadda ra'iisul wasaarahan dambe markuu qabsaday maxaa dagaalka soo dedejiyay waay in dhul bilaarsi la galo in siyaasad la galo dalkiyo nabada in hadda qalqal la geliyo ummadiyo intaasoo sano wada degan waxa hadda galay maxay tahay waa dhul bilaarsi waxaan ilaahay magaciisa aan ku dhaaranayaa oo aan ummadda Soomaaliyeed horteedana aan ugu dhaaranayaa oo aan dadweyne hortiisana aan ugu dhaaranayaa oo aniga aan magac ilaahay aan ku dhaaranayaa inaysan dhul Soomaaliya kililka shanaad meel kililka shanaad waliba meel badan aan u dhaafaa jiro waxaan diidayaa in qulqulata ay ka imaado aga iskaba dhaafe hadday oromadu iskaba dhaafe macal oromo iskaba dhaafe dad kale hata ay soo kaashadaan xaaran bay ka tahay haddii dawladda Itoobiya ay fiirsanaysa ummadda Soomaaliyeed oo la laynaya ummadda Soomaaliyeed oo oromada gumaadaysa ay fiirsanaysa maxaa soo dedeji dagaalka maanta mooyaale maxaa soo dedeji Soomaali maanta maxaa dagaalka ku soo dedeji kililka shanaad in weer intii hore oo abiye hebel abiye ما لدها مقعيس صرتني كم مقعيس ما كسايه هبل أبيه ما لدها ما صود دجي هبل أبيه أنتوا قبصة ما صود دجي أنتوا هروب من دجال مجري جرين ما إني أبيه وحو هذا الصومالي إنه مركز ذلك كقبصة ما لا دور مسوا لا دورتي ومدحوينها ورئيس الوزراء إثيوبيا ما لا دورتي مسا بابي أنت شعب الصومالي ده كل الكسرات ما لا دورتي تاسنا وحيل جرتا maamulka hadda talada hay la jirta had iyo macal isagaba mid kale ma idin la tahay hadda dhulka Soomaalida kililka shanaad mooyaal intii la qabsado looga qax oromo oo iyaduna degto calan ka taagta habarteeda ay ka tahay waxa siyasan ku riyoonin dadkan iyaysan ka dhamaanin ummadda dhamaanaysa waa ummad la qaldo waay oo madaxooda la qaldo waay oo waxba aan fahansaneen geed salweyn haddaad sakiin aad ku daydo سكين جيت سلوين ما بقوي سبا حاران بقتي كتا جيت وين انت تقعد سكين ما انت تنكر حاران بقتي كتا مو بدون ساقن جيتو حاجة المكينانة إمراتتو سي حاران بقتي أوروموي وإقدر دارن لباتن انت اسكو كنتان دولة إثيوبيا لباته كيننا مدنا وحان لي دولة إثيوبيا دد وين باتهينو أمد انتاسو سنة إثيوبيا ودد قديمة واي مدد ما انت لبا شعب استقاليا لبا شعب نيك قردر ولا اركا او معارض دبدا قوه ولا اركا او انك بان نمم دبدا قوتان او لوgu dhameynaya umada Soomaaliyeed ee maaragta kililka shanaad way ku fiirsanayaan dadkii baraka lagu sameeyna waa lagu fiirsanaya dal ballaarsi la wada waa lagu fiirsanaya waliba federaalku wuxuu ka imaanaya dhinac oromada oo dhinaceena federaal ma jirin waxa jira waa ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay ciidan hadii yahay shacab hadii yahay dhibaato ma ka socdo dhinaca federaalka ka imaana maxaa dhibaato ka keena waa yaabna inuu dhibaatada ka joogsataan rabay dhinaca federaalka ka imaanay federaalku ma mid oo ummadda u dhaxeeya bismid qabiil u dhaxeeyo way waan la yaabna annaga laftirkeena federaal waa asaasi karnaa hadda dawladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi dawladda Itoobiya ka xishoonayna ma ogi federaal qatara oo commandos hadda waan sameey karnaa annaga laakiin دولة لغو ما كرديس أنا أمد الصوماليات مانتا وأمد كل الكشانات كوهوس نول بانا أنا هدي مانتا نلقى ديقو دد عيارة هو اللي فيرسدو لبا عيالو استقالي سعمل أنا أورما أنا دولة بان برنهاي هدي سلا فيري إسلامي مان إيرنهاي أقوم بان إيرنهاي وحولي بان إيرنهاي إسلامي ماذا لفتر كده عيار ماها أنا خوف مسلم هدانهاي iyo nin Kirishtaana isku mabanihinba run ilaahay hadii loo baahay islaamnimadayda ka qaalsan nin saas u qaaliya nin xun oo Oromaa hadda dimaantu leeyahay
ceelka shalay biyaan ka cabbaan baa garahay guriga meeshaad ku dhasataan rabaa wax ku dhistaa waxaasuu dowladda etoobiya hadday fiirsanaysa haddii dowladda etoobiya ay jaahil tahay jaahilnimada ha ka baxdaan leey ha u gudubto wanaagga mujtamaca midda kale ummaddii shalay la yidhi la sii daayey 1500 maa la yidhi ka badan baa xirxiran dhibaato maanta ummadda ku habsatay baa laga xirxiray kuwii sheeganaya xuquuqda bilowaadanka oo xuquuqda bilowaadanka le oromo waa la laayay oromo waa la baabi'iyey oromo saana la yeelay oo raadiyaha dibadda kuwa oo mucaaradka macal dibadda iyo macal dalka ka qaylinaya oromo waa la sii daayay dhibaatada ay wadiyaa ka mas-uuli hadda adigu london baa fadhidaa ummadda kaliilka shanaad baa la dhamaynaa waa lagu soo duulay shalayna adaa laheed oromaa la dhamaynaa oromad anigu uguma tegin adisaaba dilla uguma tegin arbaamij uguma tegin haddii alla ku rooyahay ugumad areero uguma tegin waajal uguma tegin ninkii maanta ii imaada mooyaal gudaheed igala dagaalamaa maxaad ogaa liweys xuquuqda bilowaadanka haddii maxaa la yidhahdo hadalna human right baa la dhahaa human right watch adigu london fadhiday ma oroma kii ayaan dhaweyd hadlay oo le human right watch haddaanu nahay ummadda oromada waa dhammaatay waa la hasuuqay ha la sii daaya kuwii dhahaya hadda maa dhahdaan ummadda soomaaliyeed waa dhammaatay waa baaba'day waa lagu soo duulay aniga goormaan dillaa tagay arbaamija goormaan tagay areero waajala goormaan tagay yaaballa goormaan tagay waa yaabi tacajabe shashamane goormaan tagay dhulka oromada leed ashawa goormaan tagay dhulka caruusi goormaan tagay aniga dhulka oromada ashawa kuwii oo kufaarta gaalada ugu xunxun degan goormaan tagay aniga maxaa keenay in mooyaal markii laygu soo duulay dowladda etoobiya ay fiirsanaysa nin ka soo tagay arbaamiji baa ii imaaday aniga nin ka soo tagay dilla ayaa ka dagaalamaya mooyaale ciidamada militariga waa taagan yihiin waa u jeedaan wixii dhacay waa u jeedaan nin ka soo tagay areero ka koraa imaanaya ani areero maan tagay meeshaydaanba ku fakan la sooma haddana saas ay tahay dadkaas soo dhexgali dadka koofi gaduud baan ugu leeyahay koofi gaduud maaha koofiyada dhiig bay wadataa miya macnaheedi ummadda soomaaliyeed wax lagu baabi'inay sooma haddii dhibaatada la wada dowladda etoobiya ay wax ka qaban weyso ilaahay baan ku dhaartay tan ka daran baa la arki doonaa tan ka daran midda kale etoobiya waddayba isku furtaan ayadu war ma hayso wadda isku furtay waxay waddada isku furtay maxay tahay dagaal maanta adduunku mamnuuc waayaba dagaal meel kasto in waan iqabow lagu qaboojiye hebel abiya markuu koraa hadda dagaal ah bilaabanayo weligay ma maqlin oo horoma laga harsan waayo oromadii waaga hore waan ka harsanayn nabadan isla degneed maxaad soo kiciye intaa dabeed dowladaaraa la door dhul ballaarsiyaa la wadaa waxaan dowladda etoobiya u sheegayaa haddii oromo iimaanka ku weyda dhulkeeda anaa qaadana ogaanteeda lahaada intaas wabilaahi tawfiiq anoo soomaaliya anoo muwaadin soomaaliya diintaydaan kaashanaya ayagana kaatoliga ha kaashtaan meelaan isgeynayna marka dowladda etoobiya ha nagu fiirsata hadday soo dhexgali weyso